wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha amniga wasiiru dawlaha madaxtooyada xildhibaano gudoomiyaha gobolka Baay ayaa kulan la qaatay maamulka degmada Buur-Hakaba iyo odayaasha dhaqanka si loo dardargeliyo howlaha bulshada. odayaasha iyo maamulka degmada Buur-Hakaba ayaa ugu horeyntii si faahfaahsan warbixin u siiyay mas'uuliyiinta baahiyaha ka jira degmada iyo guulaha dhanka dawladnimada ay ka gaareen. gudoomiyaha degmada Buur-Hakaba mudane Cabdi Maxamed Axmed ayaa kulanka ka hadlay wuxuuna sheegay marxaladaha degmada xilligan ka jira wuxuuna wafdiga iyo madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ku amaanay dadaalada ay wadaan. Buur-Hakaba dadka waan waraayana Buur-Hakaba ma waan waraayana Koonfur Galbeed Buur-Hakaba mahanjeed Koonfur Galbeed dadka raayan dad unno mid dad oo shakhsiyaal oo dana gaar ah Buur-Hakaba dawlad goboleedka Koonfur Galbeed siyaad bar dawladda isbati ila dhahdo afarsan shariif hasan saarnay ittahan Buur-Hakaba la qaado boqol intaas arday abdaasiis madi madaxweynaha dalkari madi inkoreyti boqol arday iyo ittahamkii la qaadi madi tan dambe oo boqol konton la qaadi boqol konton madi oo baydhow baahan berjo jidka la qobsay berjo baydhow madi sadan al-shabaab atiin la raamila la qobsay boqol konton waalid iyo nabadka jiifada awlaadiyo inta ittahamad inta la qaadi madaxweynaha dawlad goboleedka abdaasiis la qaali dadkina oogin reer Buur-Hakaba sharaftaasmi oogin dada weerayana Buur-Hakaba dawlad goboleedka ma fadaas inta kabati walaaga sayto wal jiraan ma askartu inta roogda dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ka tirsan dawlad hol karana wal eed oo lanka dhiboon ma dheefsay dawlad shakhsiga oo leh madaxweynaha leh wasiirka leh oo dawladda kamidana in dalku un dagaalan degmidii uu roog uu ka dagaalan wala ka tirgalay ma abdaasiis wal mahdiibna wasiir wiligan meer abdaasiis Buur-Hakaba intiis madaxweynaha dhibaato badan ka jirtay laakiin dhibaatadii maalintiis madaxweynaha walku roysidii ugu dambeyn wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Koonfur Galbeed mudane Cabdullaahi Xaaji Xasan ayaa ujeedada kulanka daarna warbaahinta la wadaagay ujeedada oo kooyna ma haytay shirayadii in uu xaaladii ogaano duruufo jiraan aragna indhoogan ka aragna wala nin shisheega leeyma siin la qiibsan dhibaatada jarta farxadda jarta wala dhum siin la qiibsano dawladii madana kanaga noo warbixin injeyna muhiimadan tan haytay iyo wasaarado oo ku dareerno arrimaha gudaha iyo madaxtooyadii amnigi walbana goonidii yaayaan warbixintii raasdaasay walaa una aruursadni safayleen haneen dhawaay farxad oo una malayaan sida gudoomiyaha sheegay runtiisa oo dhamada baahan shaqale qabnay asbalay la kulman doontanba laakiin geesanimo iyo ilaahay ka banayay waana alxamdulillah aragnay buul waliyaal aragnay in nabataalo aragnay in maamul jaro aragnay in ciidamada geedka Koonfur Galbeed lata daraawiish inay honay iyo xaraka leeyino ismaamulayaan oo nabadiyo oo aragnay waliyaabo badan oo marne masbaan ku sheegay oo dhigani oo inay been ay ogaanay jiraan ilaahay idin shay maysiin ku jeeyeen warbixin fayla wala una aragnay beegna ahayna intun dad dareeraan haday kulliyo iska ra'yigo managadaayna laakiin may oo iska raacsana inay oonay soo wanaag in aan dhawaay nabad marka roogdano walaaga duruufo Allah maray dhibaato la ogiya go'doonka isan ka jartaan iyo la ogiya haatan isan dadaalkin isku duubanaantin maamul kin iyo oonay ciidamadan iyo odayaashan in iskiirintiin argo hayna ilaahay idin shay intaas siin ku jeeyana mayna siin rajayana guultan kuwiina siin rajayana Maxamed Aadan Socdaal TV-ga iyo raadiyaha dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland degmada Buur-Hakaba ee gobolka Baay.